بس سميسي أمر سدحات إذا فرصة إسيسي mahadsanid asuga yani ma sugeenin balamiil iga qaaday inta la iga baxo aniga ina qof xabsi ku jira amal taleefka keen dukaankaaga ilmahaanato because ani ilmahayga asoo kuma xad gudbin laakiin yani waxyaalo ilmahayga qoseeyo aniga sida hadda warka hada in ka qariyo si qaldan hada u dhigeysin okay waa idin wada sheegaan gabadheeda aabaheed cod isoo wuxuu dhahay cunugta yani ina mar walba la hadla raba lacagta biilkana aan ku kordhiyo balooga la saare xalay dhahano way idhibe inaanin ajnabi la hadashid lacag ma uga baahan tahay lacagtiisa oo asagu siin lahay ana ku siinahay arimaas kale marka arimo qosay ma ahan fiiriya warka fahma arimaha ilmihayga iyo cidii lacag igu siinaysa iyo cid la hadashiinayo arimo asoo qosay ma ahan waa cala xuriyadeeda ma fahmoosin waxyaalo waxa jiro oo adiga marka ilmo hore u heysatid adiga ninka isqabtiin waxyaalo aan asaga qosaynin jiro waxyaalo waxa jiro fiican inuu qofku xuduud ka yeesho xagga ka istaago gardara ma ahan yani ma xumeeyno maadaama aan kala tagno ma ku xumeeyno yani inaan ka hadlo laakiin bas waxa idin fahansiinayaa gabdho يعني وحاجرو قفك بلادنك marka hooyo tahay ilmo heesato adaa ku gashay ilmahan aabayalkood haday soo wacaan in blog asaar iyo yaa la hadlin iyo yaa la hadashin iyo lacag ma uga baahan tahay lacagta ana ku siinay aad hadid totally wiilo xaq ma u lihid adi gabadhana nolol ku darsatay ilmaha nolol ma ku darsan ma go'aamin karto wax laga sameeyay adi okay maxaa ku soo haray mid shaqadeeda ayadan soo kala faragashi shaqadeeda marka waa dhibsade qofkan shaqadeeda inuu soo faragashto xaq uma lahan taleefanka halkan waa la baara taleefankii dadkii caanka ahaay oo friendska ahaan qaar falowga laga cishta qaar balowga la saar qaar waa lagu dhedheelo wixii dhanbo macnaheedu maxay tahay aan ku waji gooyo waa wajigaaga aan gooyo waana ka wada hadalna waxaan dhahay adduunka xitaa naaga soo shaqaystaan haday jirto فلو هكا عشان كوما فرقشنا وحي قهري أدنى وحي كهريها إيويديننا رهاني يعني نلاشين هاد سوسكم صلابا ها وحي هاد كدن بي كدب بانك حساب تمينا وحي هاد كهريين هكا هادلين تكامل يدو كهريين إنو كهاد لحق مولهن الميغو كهريين أبيالكود إن لهذا الشينا إنو كهاد لحق مولهن دادك عانكو إسفلو قرين وكهريين إنو كهاد لحق مولهن وحي انت سكدن بي وحق وليه إنو نلاشين حكم مها marka de walaal macaan aniga marka xukunkaas arkay waan dhibsi dheer kadibna waxa la dhahay ama qofkaan rabaa noqonee taleefankaaga shaqadaada wixii ku soo bacay wixii ilmaaga soo bacay wixii aad u geynaysid kulli waa maamula ma fahmaysaa saas baan gacanta ugu heenaya ama aysan ahayn أنا وأنا بحب باديان هذا أريبان راعويا مقالة ما بإقاطبه أنا حاير بادي ما أدري ما راعو ساها بادي قبر كعروسة ورقد يضل يسكسو لي استرس مباني يعني باديها بس حد صصبا كلا تقنع وحاي سهر ناير الكومنتي أو وين جانس ونقول رتوانكو قاعد وين جانس ونقول ناقيكو قاعد يجرى يسهري ما أنتو يدين فديسا قلال صفرت لباتني تدبري باناكت لو فرصو دها مهمة لك يعني أنا فرح سنة هواي وحايدك دهدين وحمي قل يا وحايدك دهدين وحمي قل ناني ما فهمتين مركو كاسا يا نلاش انت سواء نلاش انت سواء ها اوكي هل ميدا idin sheegay marka saddex waxyaalood haduu ninka ragga isku darsado fiiriya saddex waxyaalood haduu ninka ragga isku darsado tajamale ninka ragga haduu isku darsado kuleel iyo qeylo kuleelkii qeylada dumarka ku fiican horta mugtiyin rag ma ku fiicano
kuleel iyo qaylo haduu isku darsado oo qof qaylo badan ninka uu yahay khalaas maskaxiin oo depression ku ridaa. lambar 2 ninka ragga haduu yahay inta kale inaan ka hadlamo iyo qurux badna bas waa iska dhaafay laakiin aan xaal ragga kulkulul oo qaylada badan gabdhaha ma farxad geliyaan ani kulay kuma farxin. yaaway anaga ma ahna umaleyna dariska waay. okay gabar walba marka gabdhaha qiimaha leh idin sheegaa gabdhaha qiimaha leh idin sheegaa aniga dumarka waa ogahay dumarka ay saaceynayaan laakiin ani hal mid ogahay hal mid idin sheegaya gabdhaha qiimaha badan gabdhaha shaxshaxda ee gabdhaha sharafta badan idin sheegaya gabadha aan aarsiga aqoonin fiiriya marka tahay qof aarsado waxa tahay qof gun ah gob ma tihid aarsata laakiin gobta ma aarsato. okay marka tahay gabar yani wixii shalo ku soo maray maanta iloodana ilaahay rabbi subhanahu wa ta'ala oo qalbigaas ku siiyay oo ya rabbi dheh oo ku siiyay qalbi caafimaad qabo oo cudur qabin. ana hadda maanta alxamdulillah shukri nolosha koowaad markay burburayso waa la istaraysay laakiin tan hadda soo maahan bisinkii burdiyo askari training soo qaata tan dib way weeso burbur ma ahee baduug ma darabta taaganahay ma fahanteen. ya marka wakaasaa gabdhahayga jacaylku wax jira waaye tanaasulkana wax ka sii fiican waaye sabarkana wax ka sii fiican waaye hadaa saddexda isku darsatay qof jacayl bixiyo aad tahay oo wax jeclaan kartid oo qalbi wax jeclaan kara aad leedahay alxamdulillah dheh hadaa tanaasul taqaani alxamdulillah dheh hadaa waxaa ku dhahay alxamdulillah shukri aad tahay qof waxyaalaha qaar u dul qaadan karo ma fahmaysaa tanaasulka waa qayb nolosha ka mid ah muhiimna waaye qofna ugu daneyna adi naftaada muhiim u yahay فاهموسا أنا ما أنتو حقوني وأهان لهاد نبسني وأهان لهاد عمري جنت كلمة نمرق وهان لهاد قفك الشلا أجعلاي أدونك أجعلاي ما أنت نلشيسا أو حبس أسوق كجرئي وينايو إن هذا ولا التاشل يقص من اسمه حسوستا ولا المع السلامة ما أنتو أمانين تادي صار فاد إن هذا ما أنتو قوني وأهان لهاد لكن ما أنتو وأنا لسه قريبة وأنا لسه بهالكي حبس وكسر بحي وحول إلا دماتك ولا جرسي جوش قدام بس أما مش قدام بس قفك مركو جاري إن نلشيس أحريو وحواي نفسني يقوم معهم قدبني يقوم معهم قنيمني يقوم معهم منع أرسنين ما أنتنا هذا الرقم ويسي مع سلامه ما فهموا سان سينا القروح بدنا وهش مرة والباينة نقطة قلبي سقف ونظيف فيها أو نفسي كلين dadka waxa uu sixir noo sixir cid isixir tamala maskaxdii tamaanay ahayd wax kasta sameeyay waa ka fikira aniga wax kasta aan ku dhaqmaayo waan ka fikiray ma fahmaysaa marka shal ku laabanayo noloshaan waan ka fikiray maanta markaan ka baxayna waan ka fikiray cid isixirtana ma jirto dambina waay waxa saata ku hadloosin yahu waxaas ma jiraan aamina go'aan yeelo walaal go'aan waan baleeyahabo go'aankan ka fiican oo gaar laama jirbo muhiimada ma aha go'aanka idin rabtiin inaa yeeshaan go'aanka aan rab inaa yeesho waay naftaan yarda ana iska leh meeshaan u arkay inaa micin badi karay micin geena meeshaan u arkay inaa xuntaan ka soo wada mac salaamo qofkii intuu fiican yahay la jooga markuu isbedelna iridan ka sii daga maxaasi xaji koolama ka marsaani qofkaaneeto wakasa teeda kaleeto waxaa idin sheegayaa mataqaaniin qof wax jecelna go'aan male taas ogaada waa hadaa dad wax jeclaadeen ku jiro qof wax jecel go'aan male qofku markuu wax jecel yahay go'aan male qofku markuu wax jecel yahay uu naxariis badan yahay qofku markuu wax jecel yahay uu tanaasul badan yahay qofku markuu wax jecel yahay ceebahaaga iyo dulduleeladaada ma arko gabaray
qofka hadaa aragtid mar inuu ereyga afkaaga soo baxana u xisaabsan yahay tilaabada qaadidna u xisaabsan tahay mar hadaa aragtid abaalna uu salaheen hadaa aragtid kuma jeclo qofka adiga aad jeceshahay ama ku jecel cidi jabkeed oo wanaag hadaa u samaysid bar axmed wanaag ismiiloobo qofka galad male qalbi wax xasuustana malahan ana runtii idin sheegayo in loo jeclaadana waxa ka weyn oo ka wanaag badan oo kaaga fiican 100 mar adduunkiisa dhan qofka inuu ka aragto ku jeclaado waxa ka weyn inuu ku ixtiraamo mar hadii lagu ixtiraamayo nolosha ku fadhisaa walaal laakiin jacayl bila ixtiraam oo xukun oo maxkamad oo xabsi ah allaha ka alla baayo macaane warka soo gabagabay qofkaas warkayga dhibooyo yaa ay ogaada jibiyo ogahay waay warkan buu ilaa iyo galabta u furnaa raba maxaa dhibka ku haysta maxaa waay warka la gabagabayna kala codta male hadda karti dhageysada iska bax waxay sheegayaan maanta qisa dheer aan kaga sheekeynaya qisadan kaga sheekeynaa waxay tahay moogtiin horto qofka oo soo bahalkiga ah oo hooy la'aanta soo koro inta badan wuxuu raadiyaa naxariis because yaraantiis naxariis ma soo arkin okay sababaha dadka si naxariis u raadiyaan mataqaanin dadka oo fiir laabta hooyadood ku soo koro wallahi naxariis kala raadiyaan because naxariista xaq u lahaayeen yaraantooda soo heleen ma fahmoosa aniga mararka qaar waxa isdhahaa fiiriya wallahi bila ina been sheegan mararka qaar waxa isdhahaa ridwaan koriimadaadi baa waxay saameysay weynaantaada gurka ahay sababtoo yani yaraanteedii naxariis waarid ma soo helin waxa ku soo koray nolol yani dansan oo bahalki ah xitaa mararka qaar waxaan xasuustaa ilmihayga inta hadda leegin marka la ekaay ciyaalka markay ciyaarayaan waxa sameyn jiray ilmaha way ciyaarayaan oo aan xaq gacmala fadhiya aabahay markuu imaado wuxuu jir miskiin ay aawe maxaa shib la tahay maxaa gooni la tahay maxaa ilmaha uga dhex baxsan tahay inuu cunug farxad ku soo koray yaraanteeda ma ahayn okay weynaanteedii guurarka way iga xumaadeen sababta iga xumaadeen sabab kale ma ahayn waxa waaye way ku saameynayaan nolosha yaraantaada way ku saameynayaan weynaantaada marka gabaray hada adiga yaraantaada hooy la'aan aad ku soo korin ku dadaal ilmahaaga inay soo hooy la'aan noqonin cidlo qalbiyana ha dareeme milyaneer hada tahay xitaa yaraantaada koriimada yaraantaada weynaantaada cidlo qalbiyana ku dareensiina qofkii laba maalin ku qoslo ama qofkii laba maalin ilka ku cadeeyo waxa u maleeysan walaal inuu ku yahay qofkii laba maalin jacayl ku tuso waxa u maleeysan jacayl dhab inuu ku haayo ma kala saari kartid qofka xun iyo qofka fiican because ma ku soo korin nolol naxariis leh nolol jacayl kuma soo korin jacaylkan wax kama bataqaanidbo laakiin ilmaha hooyadood la soo koro ama ilmaha familkooda ku soo dhex koro ama ilmaha naxariista ku soo koro way yaqaanaan jacaylka saxda iyo jacaylka feega ma fahmoosin cunuga koriimadiisa inay qaldantana weynaantiisa dambe u basbaxay dadka qaar markay arkaan waxay dhahaan waa qurux badan tahay lawacaga heestaa waa shaqaysataa no ana xaslan waa heestaa sax waay nolosheeda ku maaraya laakiin wali waxa dareemayaa inaa jacayl u baahanahay inaa nolol sax u baahanahay inaa shaqsi fahmo oo nolosha ila fahma u baahanahay inaa nin rag ah oo aan ku dareemo wehel inaa heesto oo garabkayga ka muuqda inaa u baahanahay waxaa dareemaa inaa u baahanahay nolol dhab ah oo qiyaali ahayn taas waxay u kaliftaa marka qofka markuu ii ooyo ama emotional oo ituso inaa isdhaho labana mid waay fiiriya dadka xagga dadka fiiriya laba mid waay dadka ku soo koro nolosha adag kuwa waxay noqdaan kuwa nolosha ku soo koreen camal ee noqdaan dad arxan daran naxariis daran xitaa mararka qaar waxa ka suurtooda inay dilal geystaan dadka qaarna laba nooc ay noqdaan dadka oo ku soo koro nolosha adag dadka qaarna waxay noqdaan mataqaanaa horta malii maqlooya
وراي قابي هوي إيه قابي واو قطر واي هوي حقاد أنا إني ما أنا قابي هاي قابي يا dadka qaarna waxay noqdaan laba mid waay dadka qaar waxay noqonayaan kuwa arxan daran naxariis daran oo waxay noqonayaan raxmad dhan lahayn because isaga qofkan nolosha ku soo koraa bedelayso qof adag ee ka dhigay oo arxan aan lahayn naxariis dhanka guurto dhagax uu noqonaa xitaa waxa ka suurtoodo inuu naf gooyo ka suurtooda qofkaas dadka qaarna dhibaatooyinka ku soo dhacay wax walba tusaale qaataan waxay israayaan adisaana kugu soo dhacday garab maad helin adi fursada weyso qofkan uu weynin labadaas marka hadii la fiiriyo kee wanaagsan qofkan oo maskaxiyan cadow u noqday iyo qofkan maskaxiyan daciifka u noqday labadaas marka la fiiriyo nolosha maanta la taagan yahay waxa guuleysan karo qofkan maskaxiyan cadowga u noqdo xaasidka noqday waa nolosha maanta la joogo ee bay'ada maanta lagu dhex nool yahay ee bulshada maanta lagu dhex jira markii la fiiriyo waay qofka cadowga baa noolaan karo laakiin qofkan oo daciifka noqday oo wax walba maskaxdiisa bedeli karaan wax yar haduu arka been run ma kala saari karo dhibaatooyin ku soo dhacay oo tusaale qaadani wuxuu isleeyahay qofkan ma u qalmo waxaan emotionalkiisa ama naxariistiisa ee badan tahay markasta bulshada waxay u arkaan qof doqon ah qof gaabiyo qof aan go'aan lahayn qof liito waxyaalahaas ay war arkayaan mi fahmoosin علوشة كهدلو ساملاي ولي علوشة كهدلاني ملا يعني مبكو هدلبو ولي عليه علوش لك هدلين جرى ملا يعني مبكو هدلاني مركب وحايدي الشيقايا marka waxa idin sheegaya hal mid ay noloshu ku fiican tahay qofka soo kaleetay hal mid ay noloshu ugu fiican tahay noloshaada halka mid ay ku fiican tahay waxay tahay inaad kala qorsheysid inaad weysid time aad bulshada ku dhex gashid dhibaatooyin kugu dhacay sida oo kabsan kartid waay waxyaalaha ugu badan oo xaaladaha adag uga gudbaa idin sheegaa dadka asxaabta badan ma ihi dadka saaid u dhaxgalgalana ma noqdo waxaan noqday qof xirxiran waqtiga soo iga dhigaa idin sheegaa weli waa naxariis badanahay laakiin waxaan noqday qof xirxiran asxaab badan aan lahayn saaxiibo badan aan lahayn jacayl badan aan bixinin dadka asxaab la noqonin waa isgaagaabiyo waa isreebe ka bacdi ilmahaaga shaqadaada iyo naftaada waqtiga u kala qaybinaa saasoo tahay haddana emotionalkaaga wax bedelo waa arkay qof waa arkay oo ku dhahayo dhibkaana ay haysto kana ay haysto waa caawinaa birina laga yaabo cadowgaaga koobad inuu noqdo ama nin ha noqdo ama naag ha noqdo biraha laga yaabo inuu ku caayo ku soo fadhiisto